bismillahi raxmaan raxiim kulan wacan daawadayaal kusoo dhawaada qodobada wararkooda ugu waaweyn aan idiin hayna waxaa ka mid ah aadan madoobe oo culeys siyaasadeed kala kulmaya lafdigaran xaalka baydhabo oo jawi kala yeeshay wararkii ugu dambeeyey xaaladda siyaasadeed ee magaalada baydhabo iyo sidoo kale kulamo xasaasi ah oo ka soconaya magaaladaasi ayaan eegi doonaa waxaan kaloo aan soo qaadan doonaa wararka ku saabsan galmudug balse saaxiib waxaan idinka codsanayna subscribe sartaan janalka si aad u heshaan wararka iyo macluumaad kale aan soo gelino mahadsanadiin dhammaantiinba aynu ku bilowno marka hore magaalada baydhabo wararka laga helayo magaalada baydhabo ee gobolka baay ayaa waxay warinayaan in gudoomiyaha golaha shacabka aadan madoobe xilligan uu culeys siyaasadeed oo xoog leh uu kala kulmayo laftigareen oo ahaa hogaamiyihii hore ee maamulka koonfur galbeed islamarkaana laga ceeriyey magaalada baydhabo haddana abaabul dhaqdhaqaaq militari ka wada duleedka magaalada baydhabo ee gobolka baay aadan madoobe ayaa waxa uu siyaasiyiinta kasoo jeeda koonfur galbeed iyo sidoo kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu u sheegay in culeys weyn uu xilligan uu la kulmayo oo ku aadan laftigareen maadaama siyaasiyiin badan ay la tartamayaan aadan madoobe oo uu ka mid yahay madaxweynihii hore ee koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan iyo xubno kale kuwaas oo markan lasoo warinayo in laftigareen uu doonayo inuu dhiso shariif xasan sheekh aadan islamarkaana halkaasi loogu guuleysto aadan madoobe oo ay wadato dowladda federaalk ee soomaaliya tallaabadan waxay ku soo aadeysaa kadib markii maalmihii lasoo dhaafay wadahadal telefoon ay yeesheen shariif sakiin iyo sidoo kale laftigareen xaalka wuxuu u muuqdaa markan in magaalada baydhabo ay geli doonto jawi ka duwan midkii hore iyadoona dhowaan la rajeynayo in magaaladaasi ay ka dhacdo doorashada guddoonka baarlamaanka iyo tan madaxweynaha maamulkaasi lama sooga halka uu ku dambeyn doono xaaladda waxaase la filayaa sidaa waxu dhici doonaan saacadaha soo aadan koonfur galbeed kullan ilaahay nabadninka dhamaayo wal dhibaato landhiin waliba rajeyaan inta dhammaanna ilaahay saas oo kale ninka fududaayo ilaahayna ummadda soomaaliyeed qalbasho in ilaahan isdum dad isjeed walaalew kulli walaalu dad isjeel ilaahay ka dhaka waxyaalaha maaragtay hadii wili maaragtay yani dadkii wili waltabada amal waliba lena wal kasto la tabadawn wada hadal in ka dhamaayo dad walaale insha Allah maaramaan yelay dhabadan la xamari shacabka Soomaaliyeed waa badan xamari hal nis dul qaaday hal nis sabray dawladnimada islaamnimada walaalnimada Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed oo dhibaato badan xamari daraadiyo qof kasta waliba lena hal nis tanazulay qofna malku maaramo qof kasta wala nis baahini qofka geey koob helay baran ko kale qoobade taasina ummadda Soomaaliyeed guud ahaan ya talakasiyaan ilaahay aan ka shukriyaan may kale runtii aan jeediyay guud ahaan dalka dhanban baahanyatana gaar ahaan koonfur galbeed waliba laha shacabweynaha ciidamada dhammaan in la isku kaalada guulin ilaahayna say sidii leen ilaali shacabka Soomaaliyeed qalbishay walin deersin reer koonfur galbeed qalbisho leen dhaawacan fahmag iyo farax iyo geeka ka roogan dadka wili ma aragtay yani towan wala nin baahanayn in oo shacabkan la dhabaatay dadka towan may laha kuwaantow ciidamada iyo shacabkan iskaalada amniga halka dadaalo qof kasta amniga hortiis hormar ma jira amniga hortiis walbarasho ma jirta qofkii hata ka fikiraw oo shacabkan aragday in isku damqada sheegada hatan dhabaatayo walaalayaal qaldintiin may balaaysiina toos istoosi ilaahay ku obsada shacabka Soomaaliyeed ciidamada may la hal dadaalo qof kasto qalad galan shalay baad wal yar oo leen farxan ya magaalada ku dhiyeen lan kasta qalad galana cadaalad horteed jeeyo bilaahay gaar ahaan way kala tan xambaliyay xildhibaanada cusub reer koonfur galbeed sida sharafta lahan dooradeen aan runtii guud ahaan shacabka dhinaca kalena saraakiisha ciidanka koonfur galbeed gaar ahaan kuwa taabacsan laftigareen ayaa iyagu isku diyaarinaya inay duulaan culus ay ku qaadaan magaalada baydhabo ee gobolka baay siyaasiyiin cusub ayaa ku biiray maanta mar kale iyadoona lasoo warinayo in tani ay u tahay fursad weyn oo laftigareen uu helayo isla markaana caqabad weyn waxay ku tahay dowladda uu hogaamiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud ma dhawaay ciidamada daraawiishta koonfur galbeed xaq u dirirka ah balantaan iska ogaynaa ku baxeen yaan mahadnaga yowaan ha dhawaay doon may kale mahad bileer inta ku jeediyey saraakiishii baydhabo roogti balantaan iska ogaynaa bati ciidamadii qaybtood yanin diraahani deerti saacadda dalro may gacanta ka hayne lama baabur ya gacanta ka hayne iyada siin ka mahadnagaan dadaalka soo badaan iyo dadaalka duun lamlaab yelisin ku fada warka milbada moo ka aadan saraakiisha kooyta daraawiishta iyo saraakiisha soo watidi aan mahadnaga
ha dhowaada gacmo fur ha ka dhowaada ciidamadiin ha ka dhowaada dhinaca kale galmudug haddii aan eegnana waxaa cirka isku sii shiriiraya xiisada galmudug waxaana lasoo warinayay in xaaladdu ay gaartay meeshii ugu xumeed dhinacyada waxaa saacadihii ugu dambeeyey u socday kulamo aan caadi ahayn oo ay yeelanayeen madaxweyne xasan sheekh garwadeenna uu ka ahaa ra-iisul wasaare xamse cabdi barre inkastoo dhinacyadu weli ay isku fahmi laayihiin sida loo maareynayo xaaladda galmudug mahad salaad waxa uu si weyn ula saftay hogaamiyaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qorqor ayaa waxa uu bilaabay inuu urursado ciidamo badan hub fara badan ayuu sidoo kale uu helay dowladda soomaaliyana waxay doonaysaa in qorqor meesha laga saaro xaalka marka la eego waxa ay isku bedeli kartaa in galmudug dagaal qaraar uu ku dhex maro dowladda federaalka soomaaliya iyo hogaamiyaha galmudug axmed cabdi kaariye qorqor dhahno madaxweyne anagu waa isdhiibnay ma jirto waxaan ahayno noo dhiman ma dagaalami karno umaanan diyaar garoobin hub umaanan tabcan lama mid maahin dowlad goboleedyada dariska annaga ah bismillaahi raxmaani raxiim anigoo wasiirkiisa halkan waxaan rabaa inaan ka jeediyo war saxaafadeed aan rabaa inaan kula hadlo bulshada reer galmudug iyo bulshooyinka soomaaliyeedba salaamka bacdi waayahanba waxaa jiray ishuursi siyaasadeed iyo khilaaf ba-an oo soo jiitamayay oo annaga reer galmudug ah isfaham waa uu nagala dhexeeyey xukuumadda dhexe ee federaalka soomaaliya shalay madaxweynaha oo ka qudbeeyey goob fagaaraha oo ciidul carafa lagula tukanayo bulshada wuxuu noogu iclaamiyey dagaal ka dhan ah xukuumadda federaalka ee soomaaliya inay galmudug galayso madaxweynuhu annagu umaanan diyaar garoobin reer galmudugu inaan dagaal la galno xukuumadda federaalka ee soomaaliya afarta gees ee dhuusamareebi maanta waa xiran tahay meel aan madaxtooyada ahayn oo noo furanay ma jirto xarunta baarlamaanka oo madaxtooyada dariskeeda ciidan baa jooga xaruntii inji ciidan federaalaha jooga kontaroolkii labada kontarool magaalada laga soo galay ciidan federaalaha jooga airboortkii caasimadda iyo airboorrada galmudug oo dhan ciidan federaalaha jooga tan iyo xalay iyo tan iyo shalay waxaa kusoo gurmaya magaalada gudaheeda ciidan federaal oo xananbuure iyo xarar dheere isaga kale xarar dheere iyo xananbuure isaga kale imaanaya intaas oo dhanna hadal si fudud afkaaga uga soo baxay ayaana gaarsiiyey madaxweyne in intaas in la eg oo ceeba oo sharaf dhaca annaga ay nagu soo aado wax noo dhiman maanta oo aan ahayn annagoo madaxtooyada dhexdeeda joogna intaan gacmaha dhiibno aan isdhiibno oo dhahno madaxweyne annagu waa isdhiibnay ma jirto waxaan ahayn noo dhiman ma dagaalami karno umaanan diyaar garoobin hub umaanan tabcan lama mid maahin dowlad goboleedyada dariska annaga ah ee nugula jira xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya sidoo kale umaanan diyaar garoobin waxaan maanta kala hortagno annagu xukuumaddii dhexe iyo madaxweyne xasan sheekh midna ma jirto adigaa siyaasadda nagu hogaamiyey adigaa yiri waxaan ka tirsanahay xisbi JSP adigaa shirinta noo qabtana yiri xisbigaasaa lagu daba faylo xisbigii baan ku daba fayshannahay xukuumaddii aad tidhi hal raacaan raacsannahay kaama filanayno saacaddii u dambaysay aakhir min asaaca inaad madaxweyne intaad kaamarada hor timaado aadna tiraada dagaal baan gelaynaa waayo guud ahaan daawadayaal wararkii aad ka daawanayseen janalka waa naga intaas ammaan allah